golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliya waxay halkan ku yeesheen shirkoodii caadiga ahaa ee khamiislaha ahaa oo looga hadlay ajadayaal badan oo ay ku jireen dabcan arrimaha amniga iyo sidii dalka Soomaaliyeed loo nabadayn lahaa meelaha wali kooxaha nabadiidka ay ku dhibayaan shacabka Soomaaliyeedna gacanta dawladda loogu soo celin lahaa sidoo kale golaha wasiiradu waxay ka hadleen arrimo iyo xeerar iyo siyaasado wasaaradaha kala duwan ee dawladdu ay horkeeneen ilaa saddexa oo ay ku jirto siyaasadda daryeelka bulshada oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu golaha horkeentay siyaasad aad iyo aad muhiim ah oo shaqo loogu abuurayo dhalinyarada Soomaaliyeed runtii shaqo la'aantu hayso mashaariic badan iyo ganacsatada yaryar loogu abuurayo mashaariic shaqo loogu abuuri karo oo xagga dawladda iyo xagga private sector-ka ama ganacsatada labadaba laga abuurayo shaqooyin oo hay'ado badan oo dawladda Soomaaliyeed ay keentay iyo dawladda lafteeduba ay sameynayaan qorshayaal dhalinyarada Soomaaliyeed shaqooyin loogu abuurayo mashaariic cusub lagu keenayo ganacsatada yaryar lagu taageerayo lagu hawlgelinayo sidoo kalena siyaasadaha kale ee la xiriira waraabka iyo siyaasadda iyo xeerarka marista wadooyinka ayay golaha wasiirada lama loo qaybiyaa ama ay ka doodeen gabagabadiina goluhu runtii waxay dhamaystireen ajadayaashii u yaalay iyo waxyaalihii taagan ee dhinacyada dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo siyaasadda ayay ku kala qaateen warbixin